بسم الله السلام عليكم صاحبتي بعد السلام يا ملك ستود نقد ونسان يسوى البواد نو جوكتان وعندي أقول سلام يا سلام تسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما أنت عاوي وحول بيدين تاي وحندين وذا قضب حساسي هذا قضبكم حياي وحن وذا wiilasha Soomaaliyeed gaar ahaan dadka doonaya inay guursadaan ee iminka saaxiibada leh waxaan ku wadaa 9 qodob 9kan qodob gabadhaad ku aragtid ama quality waa gabar aad u wanaagsan hana sii deyn noloshaada 9kana si fiican u dhageyso laga yaabo qodobka ugu muhiimsan inuu yahay qodobka ugu dambeeyo si markaad u heshid qodobyada dhan dhageyso ilaa videoga bilowgiisa gabadhu waa inay ka caqli badan tahay adiga waa inay tahay gabar caqliyan intellectual gabar caqli badan wax walbo aad ku challenge gareysidna ama barnaamij walbo markaas keentido adiga fikirkaada aad ku keentid gabar ku challenge gareyn karto gabadhu waa inay ahaato baaritaanada ay saynisyahanada sameeyeen waxay xaqiijiyeen gabadha markay qof ideally ka caqli badan tahay inay noloshaada wax badan ku kordhin doonto fikirro badan oo adiga ka maqan qodobka labaad she is honest gabadhu waa inay tahay gabar daacad ah qof dishonesty ama aan daacad ahayn weligaa ha agmarin daacadnimadu waa wax qaali ah lama helo waxay leeyihiin waxaa jirto oraa English oranayso honesty is very expensive don't expect from cheap people oo macnaheedu tahay daacadnimadu waa qaali hana ka rajaynin dadka aan garanaynin ama cheapka ah saddex gabadha she has a positive outlook gabadhu waa haddii ay tahay qof positive oo nolosha si wanaagsan dhanka wanaagsan bas ka fiiriso rajadeedu ay fiican tahay oo aan rajo xumayn waa gobar qiimo badan sababtu waxay tahay qofka markuu rajo fiican leeyahay oo out positive u yahay wuxuu ka tusayaa nolosha dhanka wanaagsan ayuu ka tusayaa taasna waxay sababaysaa inaad horumar weyn gaartid lama rabo inaad qof negative waqti aad ku dhameysid hadhowna adiga laftirkaada xaaladaada markay kugu adkaadaan aan waxba kaa bixin karin laakiin gabadha caqliga ah inaad positive ka ah ereyadeedii positive macana ayay ku siinaysaa waadna ka badbaadaysaa negativity-ga qodobka afraad she compromises gabadha waa inay ereygan waxaa la compromise waa inay tanaasusho qofka waa inuu tanaasulo haddii ilaahay ku siiyo gabar markaad waxyaabaha yaryar isku qabsataan iska tanaasusho fiirinayso xiriirka kale iyo nolosheeda jaceylkeeda ugu qiimo badan yahay qof qaali adaysataa hana ka sii deynin hana daahin waqtiga laga yaabo waxaa layidhi daahana hortiisa dafana joogo gabadhaas qaali waayo she loves your jokes gabadha haddii ay jeceshahay kaftankaada la joogidaada erayadaada ay aad ugu socdaan markaad la sheekeynaysa sheekadaada ay ku haysato kaftankaada aad u jeceshahay qoftaas qaali waayo ha sii deynin sababtoo ah markastoo aad hadal tiraahdid sheekada interest bay sii yeelanaysaa marka isku day inaad maxaa la jira qoftaasi sii deynin haddaba qodobka kale maxay tahay lixaad she has an open heart gabadhu waa inay gabar qalbi furan tahay waa inaysan ahayn qof xiqdi badan amaba dadka ilaahaan qof cuqdad leh oo wax dadka u kaydiyo inaysan ahaanin gabadhu waa inay ahaato gabar open heart ilaahay kuuma darnaadee oo wixii dhacayna ka tagto wixii xaqiiqtana kuu sheegto runtana kuu sheegto markay xaaladeeda ay tahay waa good point gabadhu waa inay tahay qof caloolfiyo oo wanaagsan qodobka kale toddobaad she supports your goals and does hers as well gabadhu waa inay taageerto hadafkaada hidiiladaada horumarkaada iyo waxaad mustaqbalka rajeynaysid inaad noqotid dad xil iyo wax walba aragtid inaad noqotid gabadhu waa inay mar walba garabkaada taagan tahay waa inay kugu taageerto nolosha dhanka wanaagsan taas waxay sababaysaa oo ay sheegaan gabadhu markay ku taageerto ayadana ay waxeeda barato strong woman markay tahay gabar adag waxay suuragelinaysaa inay kaa dhigto nin adag sida la dhahay guul walba nin walba guul gaarayaa ka dambeeyo gabar baa ka dambeyso gabadhu waa inay ahaato gabar ku taageerto goolkaada iyo waxbarashadaada iyo hadafkaada waa inay ahaato gabar ku taageerto haddaba qodobka kale maxay tahay she has a good relationship with her parents gabadha qodobka sideedaad oo aad ku fiirinaysid waxay tahay xiriirka ay la leedahay waalidiinteeda intuu leegyahay gabadha hadday xiriir fiican la leedahay waalidkeed ilaahay kuma darnaadee ay waalidkeed si fiican u ixtiraamto oo u qadariso waxay cadaynaysaa 40 sano soo socota hadduu ilaahay nolol ku siiyo in hooyada iyo adiga waalidiintaadana ay xushmeyn doonto ayna jeclaan doonto oo aad noqon doontaan dad nolosha ku wada waaro
haddaba qodobkaas waa muhiim gabadhu inay tahay qof baari ah oo hooyadeed iyo waalidiinteeda xiriir fiican la leh danqasho leh gabadha hadday tahay kaadana way ka danqanaysaa haddaba qodobka kale maxay tahay sagaalaad last but not the least she is kind gabadhu waa inay naxariis badan tahay gabadhu waa in qalbigeeda uu jilcan yahay naxariis badan tahay aragti dheer tahay xaaladaha xataa adiga naxariistaada maahane dadka kale hataa waa inay u naxariis badan tahay qofku markuu naxariisto noloshiisa oo dhan way horumaraysaa haddaba waxaan kusoo gabagabeynayaa dhowr qodob kale psychologistayaasha nin la dhaho psychologist amaba dadka cilmiga macnaha cilmiga nafta baaro ayaa wuxuu oo la dhaho Kaufman dhigana jaamacadda Washington University ayaa waxa uu baaritaano uu sameeyay oo ku sheegay 40 sano baaritaano uu sameeyay ayaa waxa uu sheegay in dadkii lamaanayaashii almost 200 oo kun oo lamaane la aruuriyay noloshoodii iyo qaabkii ay ahaayeen la aruuriyay oo laba concept ama laba wax bas laga soo saaray labadaasna waxay kala yihiin wax afka qalaad lagu dhaho masters and disasters masters waxay tahay masters cabolis waxa waaye dadka eraadaan ku hormaro disasters caboliska waa dadka markii horena aan qiimeyn badan sameynin oo aan isku guursanin waqti badanna aan isgelin ee isguursaday dhaqso isguursaday dadkaas 6 sano ugu horeysa amaba ka yar ayaa waxa la xaqiijiyay inay isfuraan waa dadka nolosha ku kala tago oo aan isfahmin quality-gaana aan lahayn disasters cabolis la dhahaa waa dad 6 sano dad baabadeed markaad fiirisid guriga qaar oo kale in ka yar bay isku furaan haddaba disaster caboliskaas waa dad aan waqti dheer qaadanin labo kuwa dhaho masters caboliska waa dadka noloshooda dhan isku dhamaystay waa dadka perfect ka noqday dhinac walba waxaan ku rajeynayaa inaad perfect ka noqotid dhan walba hadduu ilaahay ka raali noqdo sagaalkan qodob isku day inaad eegtid inuu waxaan rajeynayaa wax badan ka anfacayo haddaba aan ku celiyo si samari ah gabadhu waa inay ka caqli badan tahay gabadhu waa inay tahay mid daacad ah labo saddex waa inay tahay qof positive nolosha dhanka wanaagsan ka fiiriyo afar waa inay tanaasul badan tahay shan waa inay jeceshahay kaftamadaada lix waa inay qalbigeeda uu wanaagsan yahay toddoba waa inay taageerto goolashaada iyo hadafyadaada sideed waa in gabadha xiriir wanaagsan ay la leedahay waalidiinteeda ay tahay qof baari ah sagaal waa inay tahay qof naxariis badan haddaba qodobadan waxaan aaminsanahay haddii aad haysatid gabar sagaalkaas quality leh ha sugin qof fiican haysataa noloshaad qoftii aad intaa raadinaysaa haysataa gabadha intaa hadda aan kuu sheegay hadday leedahay waa qalanjee waqtigaada ha iska dhuminin guurso oo ilaahay kuma darnaaday diyaargarowga hadda bilow insha allah hadduu ilaahay ka raali noqdo fiidiyoyada kusoo xigana waxaan uga hadli doonaa wiilada dumarka ayagana dhankooda ragga waxyaabaha ku dooranayaan iyo ragga nooco ay u kala baxaan iyo ayaan idiin sheegi doonaa waxaan ka codsanayaa haddii of course subscribe ka video ku yahay mid useful ah subscribe gare oo like dheh si hadhow markii aan wax soo dhigno aad uga faa'iideysatid khayr ayaan idiin rajeynayaa dhammaantiin maalinka ha idin wacnaado nabadgelyo